إلهي بانوغو مهدنقينا أن أبارتو عذابة إلهي بكمتها أبارتي نجد شبيي برواقضا إيا نمعضنا لما وذا قالي جمهورية سومالان إلهي نقو قلدي وحكذا ندو عينينا إنو مدحضا مانتا دالك هايسا إلهي حقق راسيو waxaan ka hadli doonaa maanta halkan waxa isugu yimi labada xusbi ee wadani iyo ucud oo shirarkoodii ay kaga wada tashanayeen xaaladaha dalku maraayo isugu yimid waxa halka ka soo baxday sidii la idin sheegay guddi wada jira gudiyadaasi oo ka wada shaqayn doona sidii ay u wada jaan qaadi lahaayeen ee ay u jahayn lahaayeen ummadda maanta mustaqbalkoodii iyo rajadoodii mugdiga la geliyey waxaan u baaqayaa aqoonyahanka culimaawadiinta ganacsatada dhammaan in ay u dhaganuglaadaan iyo shacabka reer Somalilandba labada xusbi qaran ee mucaaridka oo go'aamo adag iyo dhaqdhaqaaqyo samayn doona uu sharcigu banaynayo waxa god lagu riday oo lagu tutay sharciyadii dalka u taalay waxaanu marnaba aqoonsanayn lana shaqayn doonin xusbiyada qaranku aanay la shaqayn doonin komishanka qolka madow lagu dhaariyay saaka hoostiisa lama shaqayn doono sidaan horena u cadaynay waayo ma waafaqsana shafihii sharciga ahaa hadday tahay qaabkay ku yimaadeen hadday tahay qaabkii lagu ansixiyay iyo hadday tahay qaabka imika lagu dhaariyayba waxaanu cadaynaynaa inaanu la shaqayn doonin horena ay uga soo saareen labada xusbi maantana aanu ku celinayno waayo qodobkoodii ugu horeeyay ee ahaa 7 xubnood oo komishan cusuba in la keeno iyagaan dhammayn baa maantana la dhaariyay inay mindiroortays tahay ayaad arkaysaa maxaa loo odhan jiray qoley qorqabasho kuma biyacabto ima yeelayno taas waa taa waxaan runtii laba kelmadood oo gaagaaban odhanaya saaxiibaday ayaa hadalka dheereeyay waxaan jecelahay kulay saxaafaddu sii wada deynmaysee in yaroo kooban inaan ka idhaahdo gudoomiyaha baarlamaanka hadalka uu yidhi maanta uu yidhi inkastoo saaxiibkay cali uu ka hadlay waxa weeyaan gudoomiyaha baarlamaanku wuxuu yidhi xasaanad iyo sharci ma leh wixii ka hadlaa waa in la xidhaa marka xasaanad ay xusbiyadu yeelan waayaan baarlamaan xasaanad yeelanayaana ma jiro cid xasaanad yeelanaysaana ma jiro waxa tan ka haboonayd adigoo soo mariya sharciyada soo mariyo yiraahda dalkii hal xusbiyo kaliya ayaa laga ogol yahay iyo madaxweyne xusbiyadiina waanu baabiinay baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka iyo cid kastoo dawladda u shaqaysana waxay ka mid yihiin xusbul xukuumiga oo adigoo yiraahda cidii ka hor timaadana sidii awalba dhici jirtay waatiina ilay uu ku haystay kilalkan inagu xiga waatii maxamed siyaad barre waata imika Jabuuti oo kale maaha wax lala yaabo laakiin waxa weeyaan waa hadii dadku raali ka noqdo kamana raali noqonayno waxa iyaduna runtii inta dheer inuu wiigan gudihiisii ku baaqayay iyadoo meel qarannimada Soomaaliland lagaga hadlaayo uu ku baaqay soo eega xamar ma shaqaalaha xamar ee farmaajo xukuumaadu ka mid noqday mise waa nin Soomaaliland oo madaxdii ugu sareysay ee dalka maaha waxaan been abuur ka samaynayo waxa ka helaysaan nin waliba telefoonkiisa ayuu ka helayaa hadaa baasho ku dhufataa gudoomiyaha baarlamaanka hadalkii ugu dambeeyay ee imika uu saaxiibkay Cali Cantar tilmaamay waxa uu xiriir toos la leeyahay inkastoo inaan magacaabo aanan jeclayn
oonu ognahay oo caddaynteediina haynaa rag waaweyn oo ka shaqeeya duminta Somaliland oo ka haya xilal xamar ka haya ciddii u baahata caddayntoodana waanu soo bandhigi doonaa sidaa daraadeed markuu baasha ka shaqaynayo fidmada halkan wuxuu fulinayaa sidii fidmo dalkan ay uga dhici lahayd sidaa daraadeed waxa saako ugu dambeysay qayladhaani ka soo baxaysa gobolka Sanaag gobolka Togdheer gobolka Awdal tanna way soo gaadhi doontaa faraha lagula jiraa iyadoo la isku diraayo beelaha la isku diraayo dadka walaalaha ee wada degan degaamadaasi la isku diraayo taasoo ay tahay fidmo ka socota dadkan jeclayn jiritaanka Somaliland halka waxaanu isugu nimid labada xisbi qaran xisbiga wicid iyo xisbiga wadani waxaanu isugu nimid xafiiska guud ee Somaliland ee u furan xisbiga wicid anagoo gudiyada labada dhinac ka kooban xisbiga iyaga wadani hogaaminayo gudoomiyuhu xisbi kalena ay hogaaminayaan ku-xigeenadiisii iyo xogayihii guud iyo fulintii iyo raggii madaxda ka xisbiga iyo xogayaashiisii maadaama uu Faysal ku maqan yahay safar gudoomiye xisbiga wicid markii aanu shir ballaaran yeelalay in si fiican u arrimaha sida isu saaran yihiin si tafadiran uga doodnay aanu ka hadlay xaaladda maanta Somaliland ku jirto iyo xaaladda xisbiyada la saaray iyo dhibaatada haysata waxa la isla gartay labada xisbi ay isla garteen in la magacaabo gudiye hawleed ka kooban labada xisbi oo labada dhinaca oo xisb waliba uu yeelanayo 12 xubnood 12 kaas xubnood oo si yeelanaya iyaguna laba gudina ay noqonayso gudida xisb walba madaxda qaranka ugu sareeyo gudoomiyada hoggaaninayo oo afar iyo 7 xubnood oo loo xilsaaray hawl maalmeedka iyo marba xaaladdu sida jirto inay soo darsaan oo warbixin ka keenaan marka xisb waliba wuxuu yeeshay 4 meela iyo 7 xubnood 12 xubnood labada xisbi markaa waxay isla garteen 22 ka xubnood inay si wada jira oo wada shaqeeyaan inta dhibaatadan iyo duruufta adaga in haysata maanta jirto si ay uga shaqeeyaan xal looga gaaro gudiyadaasi waxa loogu talagalay inay la faguraan dhibaatada maanta in saaran ee nagu soo ifbaxday ee kow ka tahay komishanka waad arkaysaan iyadoon cidna lagala tashan in la ansixiyay iyadoon cidna lagala tashan in la dhaariyay isla maantana waad ogtiina waxa jira gudooyin ergooyinaha oo inta ka hadlayay oo daba taagnaa in ka hadlaan qodobo fara badan oo inamadii xidhay ka mid yihiin oo komishanka ka mid yahay oo kordhintii shalay ka soo baxday ka mid tahay nagu soo dul baxday gudiyadana sida iyaguba sheegeen Xasan Guuraad ka maqlaysan gudidii madasha iyo madaxweyne ku-xigeenkii qaranka ee dalkan intuba waxay cadeeyeen madaxweynuhu ka dhagaadaygay oo diiday inuu arko oo la kulmo waxaanaga shalay noo yimid oo xafiiska iyaga nagu soo boqday iyadoo labada xisbiba u dhan yihiin gudi ganacsi iyo isugu jirta culamo diin oo halkaan noogu yimid oo ay labada xisbiba ka wada doodeen oo u sheegeen waraysi markay la yeeshanayeen warbixin nasiya dhibaatada jirta ergaanna warbixintiina waanu siinay ergadiina maanta ayaa la balansanaa ilaa maantana waa la sugayaa jawaabtooda marka duruufaha taagan darteed waxa loo saaray gudida aan idin sheegay waad arkaysaan dalka waxa ka socday dhibaatada ka taagan waxa weeyaan cidna dawladdu uma joojinayso dalkanina wuxuu halkan ku soo gaadhay oo madaxweynayaashii hore ku soo maamulayeen isdhagaysi iyo isu fariisi iyo isla sugid iyo tanaasul intaaba uu diiday madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland maanta haystaa inuu cidnaba ka maqlo dictatoriyad adag oo mudanatii Maxamed Siyaad Barre ka adag tahay ayuu ku dhaqmayaa oo cid walba ka dhagaadaygayo halkay la gaari doonto ilaahay baa garan doona cadaalad darrada waxaanu leenahay in nimankaas waxay ku xiran yihiin sifar darraa
waa khayr dastuuri dastuurkiima meel lagaga dhacay waxaanu leenahay sharciyadda ha ku soo noqo xukuumaddu farahana ka qaado maxaabiista hayso hana soo dayso mas'uuliyiinta xisbiga wadani anu intaas ayaan ku bogaadinayaa xaaladaha faraha badan leh ee ku xeeran dalkeenna Soomaaliland waxa loo baahan yahay in la kala gareeyo oo dawladdu cadayso mid waxaan oranayaa gudoomiye baash midna waxaan oranayaa madaxweynaha labada qodob baan anigu sheegaya gudoomiye baash waxaan leeyahay gudoomiye baash wuxuu ku yimid xambaar wuxuuna ku xukumaa oo uu dalka ku xukumaa waxa weeye niman doorasho ku yimid buu ku xukumaa waxa loo baahnaa inuu dhexdhexaad noqdo oo uu noqdo gudoomiye dhexdhexaad ah muu noqon saaka wuxuu sheegay oo yiri waxa zaanada oo ay leeyihiin xusbiyadu ma jiraan buuri haddii aanay xasaanad lahayn xusbiyadu isna xasaanad ma laha baasha wuxuu sameeyay oo kale dhalinyarada isagoo khudbadaynaya xaflad qaran ka khudbadaynaya ayuu yiri dhalinyarada waxaan oran lahaa xamar taga sagaaba xamar ku sii wada oo le xamar taga horta isagoo gudoomiyihii baarlamaanka inuu yiraahdo xamar taga waa wax aan hagaagsanayn oo aan fiicnayn waxa kale oo jirta khaatumo heshiis bay la gashay Soomaaliland heshiiska ay la gashay ninka ka dhex shaqeynayay isagii madaxweynaha ee problem iska geliyay waa isaga